agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka tacabsan agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka WHO ardada caafimaadka barata ururada haweenka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka shaqaalaha sadajireen saxaafadda qeybaha kala duwan dhammaantiin waan salaamayaa marka hore waan kusoo dhaweynayaa xafladatan ama shirkan runtii aad loo soo agaasimay aadka quruxda badan sida ala socotaan shirkan wuxuu daaran yahay oo ku saabsan yahay wacyigelin guud oo la xiriira cudurkan la yidhaahdo pneumoniada ama la yidhaahdo qaarjeexa soomaali ahaan sooma ama oof-wareenka cudurkan runtii waa cudur aad hadda ugu badan deegaanka puntland iyo soomaaliya guud ahaanteed iyo adduunka oo dhan xogtiisana dee wax badanna maanta halkaa laga sheegi doona hadduu alla idmo wax badanna dokumentiyada iyo waraaqaha ladisiyada ku qoran yihiin sanadkii hore bishaan oo kaleeto november ayaan halka waxaan ku daafurnay ama lagu loojigareeyey report soo baxay oo soomaaliya laga soo ururiyey oo ka hadlaya cudurkan hadda kabacdina waxay noqon doontaa wax sanad walba maaragtay la xuso oo laga wacyigeliyo bulshada shaqadiisuna si joogtaa u socoto ay iska kaashadaan wasaaradda iyo hay-adaha kaleta caafimaadka ka shaqeeya marka cudurkan laga hadlayo haddii xogtiisa wax yar aan ka tilmaamo sida maaragtay aad ku arki doontaan nuqulada qoraalka la siiyey horta waxaa la yidhi guud ahaan adduunka waxaa u dhimatay 920,000 oo caruur ah baa u dhimatay cudurkan pneumonia la yidhaahdo taasoo la macno ah 2,500 caruur ah inay maalin walba u dhimato globally haddii la yidhaahdo taas marka reportkaas waa reportkii 2015 2016 Soomaaliya oo keliya waxaa u dhimatay baa la yidhi 17,937 caruur ah yaa u dhimatay oo macnaheedu tahay saacadii kastaba 2 saacadoodba ama 3 saacadoodba waxa u dhintaa 2 caruur ah u dhimata runtii waa number badan iyadoo la ogsoon yahay gaar ahaan cudurkan pneumoniada inuu yahay cudur laga hortegi karo oo maaragtay tallaal leh isla markaasna uu yahay cudur la daweyn karo oo maaragtay wax laga qaban karo iyo haddana intaas oo qof ay u dhintaan saacaddii ama maaragtay sanadkiiba waxaa isweydiin leh sababta keenaysa macnaha in loo dhinto cudurkan dhowr waxyaabood oo la ogaaday oo maaragtay researchyo la sameeyey lagu ogaaday waxaa ka mid ah in caruurta malnutritionka qabta ama nafaqadarrada qabta ay 4 jeer ay uga nugul yihiin caruurta kaleeto inay cudurkan pneumoniada ku dhaco ay u dhintaan waxaa kaltoo la ogaaday in inaga deegaankeena Soomaaliya puntland iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhanba uusan ka jirin tallaalka lagaga hortago cudurkan pneumoniada waxaa kaltoo la ogaaday iyadana in 3 meelood oo 2 meelood aysan maaragtay xanuunkii markuu ku dhaco aysan aan dhakhtar la geyn oo aan xarumaha caafimaadka la geyn oo aan laga qaban iyadoo la ogyahay inuu yahay cudur la daweyn karo laga qaban karo marka arrimahaas oo dhan waxay qayb ka yihiin ama maaragtay kaalmeeyeen in cudurkii uu noqdo cudur aad dilaa u ah oo runtii ka badan inta cudurrada kale oo dhan marka la isku daro ay dilaan shubanbiyoodka iyo malaariyada iyo TB-da iyo HIV dhammaantood marka la isku daro inta u dhimataa waxaa ka badan inta pneumoniada u dhimataa marka halkaas runtii waxay kutusaysaa cudurkan inuu halis yahay isla markaasna u baahan tahay wax ka qabasho degdeg ah wasaaradda iyadoo mataqaanaa hogaaminaysa hay-adaha caafimaadka shalay waxaa la qabtay arrin ku saabsan cudurkan oo la rabay in maaragtay hay-adaha iyo looga arrinsaday wasaaradda bal sida la qaban lahaa waxaana ka soo baxay go-aamo la rabo in wax laga qabanayo laakiin waxaan jeclahay inaan idila wadaago hay-adda leasada children oo ka mid ah hay-adaha ugu waaweyn caafimaad ka shaqeeya Soomaaliya iyo Puntland waxyaabaha ay ka qabanayso Save Children waxay ka shaqeysaa 220 xarumood oo kuwa caafimaadka ah ama hooyada dhallaanka oo cudurro badan oo ka mid yahay pneumoniada wax laga qabanayo
waxaa ilaahay mahadiisa 200 xarumood 150 ka mid ah inay Puntland ku yaalaan oo Puntland aan ka wadno isla markaasna ay ka hawlgalaan shaqaale caafimaad oo xirfad leh oo markaas u diyaarsan inay wax ka qabtaan waxa kala soo bilowna barnaamij la yiraahdo ICCM oo caafimaadka asaasiga laga soo bilaabayo bulshada dhexdeeda isla markaasna xilli hore la ogaanayo case-kii si markaa looga qabto isagana shaqaale badan baa lagu tababaray Puntland hadda aan xoojino barnaamijkaas laakiin Soomaaliya inta kale aad uga shaqeeya waxa kale oo iyadana dhaqso aan dhawaan bilownay in media ama saxaafadda la engage gareeyo oo la shaqeeyo si markaa iyadana wacyigelin fara badan ay uga qabato arrimaha la xiriira pneumonia waxaan hadda qorsheenaa oo wasaaradda kala shaqeyn doona hadda in la helo talaalkii isagana BCV ama talaalkan laga hortago cudurka pneumonia marka intaas oo la isu geeyay waxaan jecelnahay in maaragtay ay hoos u dhigto cudurkan pneumonia isla markaasna kor u qaado wacyigelinta bulshada la xiriira maantana hawshaan waxaan u faa'iideysanaynaa in fariimaha la xiriira pneumonia lagu baahiyo oo idinka oo hadda dhageysanaya iyo inta kale oo warkan sii gaari doonaba ay maaragtay xog fiican ka helaan isla markaasna dadka ay isu gudbiyaan marka waxaan rajaynayaa xogtaas inaad qaadi doontaan haddii alla idmo oo bulshada qeybaheeda kala duwan aad maaragtay u gudbin doontaan isla markaasna wacyigelintu ay qayb muhiima ka qaadato yaraynta cudurkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda shaqaalaheeda kala duwan oo runtii barnaamijkan aad uga shaqeeyey mar walbana iyagu u hawlan inay maaragtay hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka ay garab istaagaan oo la shaqeeyaan waxa kale oo runtii aad mahadcelinayaa tiimka Seljiran oo iyaguna barnaamijkan aad uga shaqeynayay mar labaad ama saddexaad aad baa mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayaa maaragtay ka soo qaybgalkiina iyo weliba barnaamijkan qayb ka ah hataan ka shaqeystaan. Assalaamu calaykum.